ما tahay muslim wanaagsan haddaba masalkan adiga ku yahay dhegayso dad badan ayaa u yimid inay maqlaan waa barista Yeshua waxay maqlaan muujisooyinkiisa awoodiisa uu leeyahay nolosha udurada iyo hita dabeecadda waxay kaloo maqleen inuu yahay masiixa badbaadiya iyo xakiimka dunida dadku waxay ka imaaneen meel fog si ay u arkaan haddii arrimaha run yihiin oo ay u maqleen ereyadiisa maalin maalmaha ka mid ah badda Galilee Yeshua wuxuu fadhiistay doon kalluumaysi oo ku taala geeska biyaha wuxuuna la hadlay dadkii badnaa ee taagnaa xeebta sida uu koray Matayos oo ahaa rasuul iyo maqaati indhihiisa ku arkay markaas wax badan masalo ugu sheegay asagoo leh beerey babaxa inuu wax beero oo intuu beerayay qaar baa jidka geestiisa ku dhacay kolkaas shimbiro yimaadeen oo onen qaar kalena waxay ku dhaceen dul dhagax oo aan aaro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen waayo aaradu hoos uma dheerayn laakiin qoraxdu goortay soo baxday way gubteen waana engegeen waayo hidid ma lahayn qaar kalena waxay ku dhaceen qodhantiina waxay soo baxday oo eejisay qaar kalena dul wanaagsan bay ku dhaceen oo ay midho dhaleen mid 100 midna 60 midna 30 kan dego waa lagu maqlo lahu ha maqlo ka fikir arrintan dadku way safreen maalmo si ay u maqleen Yeshua asaguse wuxuu u sheegay sheeko beerley oo fudud qof kaste oo Israa'iil jooga wuxuu ogaa sida dadku beerleydu inay u beereen waa sheeko qof walba fahmi kara markaas hertiisa ayay weydiistay mahad masalo ugula hadasha Yeshua wuxuu ku jawaabay idinkuna waxaa laydin siiyey inaad ogataan siiraha boqortooyada jannada laakiin ayaga lama siin sidaas daraadeed ayaan masalo ugu hadlaa maxaa yeelay ayaga waxay arkayaan haddana ma arkan ayaga waxay maqleen haddana ma maqlan maana fahmin dadkii badna ma garaneen in masalku leeyahay macnaha ruuxa oo ah tilmaamaya boqortooyada ilaah Yeshua si ula ka ah ayuu masalo ugu hadlay si dad badan ayna u fahmin saaxiibkay adiga ma leedahay dhego aad ku maqasho haddaba dhegayso qaybtii labaad halkaas Yeshua sharaxayo macnaha masalkan